iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka hawd axmed cali dariise oo maanta shir jirayd ku qabtay xafiiskiisa magaalada balligubadle ee xarunta gobolka hawd ayaa waxa uu soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay sanadkii dhammaaday ee 2019 iyo sidoo kale waxyaabaha u qorshaysan sanadkan cusub ee 2020 iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka hawd axmed cali dariise waxa uu sheegay in horumar ballaaran oo la taaban karo ay u qabsoomeen sanadkiina dhaafay ee 2019 waxaan halkan ku soo bandhigayaa waxqabadkii sanadkan imika dhamaaday waxa ugu horeeya dhamaystirka tiyaatarka qaliinka ee cisbitaalka balligubadle oo imika u sugaya in xariga laga jaro waxa kale oo dhamaystirmay broadbandkii kaydkii dhiigga oo baahi weyn loo qabay oo isaguna maanta shaqeeya dhiigga lagu shubo qofka u baahanna lagu siiyo cisbitaalka balligubadle waxa kale oo ka qabsoomay gobolka MCH ka gumraha oo dhamaaday oo doonaya isaguna imika taagan waqtiga xariga laga jari lahaa waxa kale oo dib u habeyn iyo kordhinba lagu sameeyay waxa weeye MCH ka balacbane oo imika isagu taagan inuu ka jarno xariga hadii la ilaahdo Allahumma salli ala Muhammad siyaasadda wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa ku jirtay in nafaqada hooyada iyo dhallaanka waxaan package ka ahay la keenayo waxaan ahayn in la sameeyo oo siyaasadda wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo tabeerahu ay isla afkarteen in nutritionka ilmaha iyo hooyadaba looga soo saaro dhulka arinta talaabadii aan ka qaadnay ee ka wasaarad ahaan iyo ka gobol ahaanba waxay noqotay in hay'adda GIZ oo partner la wada shaqeyn ay leeyihiin wasaaradda horumarinta caafimaadka lahaayeen in tijaabadii u horeysay aan ka sameeyno gobolka hawd degmada salaxley iyo degmada balligubadle waxa ka soo baxay khudrawaadkii vitaminiska ahaa ee kala duwanaa ee hooyadu u baahnayd waxa laga qoday dhaamam muhiima waxa la saaray tawaangidii iyo biyihii alxamdulillahi rabbil caalamiin nafaqadii hooyadii dhallaanku waxa ay maanta ka soo go'aysaa waxa weeye waa dhulka weeye waxyaabaha kale sanadkan qabsoomay wax kamid ah MCH-da degmooyinka degmada sayla degmada balacbane balligubadle iyo salaxley saddexda afarta MCH waxa la keenay mashiin casri ah mashiinka CBC ga leeyahay oo lagu baadho cudurrada dhiigga oo dhan mashiin qaali ah iyo ultrasound computer lagu eego hooyada uurka leh waxa kale oo wasaaradda horumarinta caafimaadku ay xoog nala saartay in cisbitaalka salaxley uu ku jiray cisbitaalada la siiyo raashinka ka balligubadle lagu daro way suuro geliyeen sanadkan miisaaniyadda lagu daray waxa kale oo ay nala suuro geliyeen inay 3 dhakhtar cisbitaalkan balligubadle la keeno 3 dhakhtarba way shaqeeyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka geesta kale iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka hawd waxa uu kormeer indha-indhayna ku soo maray cisbitaalka guud ee magaalada balligubadle oo lagu soo kordhiyay agab iyo adeegyo kala duwan iyo sidoo kale mashruuca beerta nafaqada hooyada iyo dhallaanka oo ay waqtigan ka baxeen dalagyo kala duwani taasi oo ku taala duleedka waqooyi ee magaalada balligubadle ee xarunta gobolka hawd maxamed jiciir axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada balligubadle